hirgalkii iyo waxqabadkii baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadaha 2022 iyo 2023 waxa ugu mudnaa oo xoogga uu saaray bangiga dhexe arrimaha ay ka midka yihiin xasilinta qiimaha shilinka Soomaaliland, kor u qaadidda adeegyada baanka, maalgelinta iyo horumariska, kor u qaadidda kaabayaasha dhismaha iyo tiknoolajiyadda, fidinta shaqada baanka, horumariska shaqada iyo shaqaalaha. Baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la aasaasay si rasmi ah albaabada loogu furay hilaadii sanadkii 1994 kaasi oo lagu aasaasay xeer u gaara. waxaana bangiga dhexe ee Soomaaliland u taagan yahay bixinta adeegyada, ilaalinta xasiloonida lacagta si loo hubiyo xasiloonida ascaarta iyo suuqyada, ilaalinta xasiloonida nidaamka maaliyadeed ee guud ahaan dalka, dejinta siyaasado lagu kobciyo dhaqaalaha waddanka iyo weliba bixinta adeegyada bangiga ay dawladdu u baahan tahay sida lacag dhigashada, deyn bixinta iyo wixii la mid ah. Baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu dalka ku leeyahay 16 laamood oo ka furan magaalo madaxyada iyo degmooyinka dalka iyo 12 waaxood. xarunta guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliland waa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo gudanaya waajibaadkiisa aasaasiga ee ugu xil saaran yahay qaranka way ugu horeyso ilaalinta xasiloonida ascaarta iyo la dagaalanka sicir bararka iyo siyaasadda xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sanadkii galbaday qaaday tallaabooyin shacabku mahadiyeen oo kor loogu qaadayay qiimaha shilinka Soomaaliland kaasi oo qiimo dhiciisu culays weyn 3 sanadood ee u dambeysay ku noqotay sidii laf dhuun gashin ay saameynteedu u wada gaadhay bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan dadka danyarta ah. haddaba isagoo baanka dhexe ka duulaya arrimahaasi iyo sidii loo xakameyn lahaa waxa uu hoggaanka baanka dhexe hindisay sameeyeen tallaabooyin la xiriira siyaasadda lacagta iyo tallaabooyin maamul ama sharci. baanka dhexe waxa uu ku guuleystay in sanadkii galbaday inuu dheeli tiro xaddiga lacagaha galaya suuqyada gaar ahaan lacagta shilinka Soomaaliland si loo xakameeyo isbedbedelkii sarifka korna loogu qaadayay qiimaha shilinka Soomaaliland. baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku guuleystay in sanadihii 2019 ilaa 2022 uu ku ilaaliyo heerka sarifka doolarka agagaarka 8500 oo shilin halka doolar. heerka sarifka lacagaha qalaad ayaa halka doolar ahaa sanadkii 2022 celcelis ahaan 8480 shilin. sanadka 2023 dhibaatooyinka dhaqaale ee dunida ka dhacay dartood qiimaha shilinka Soomaaliland ayaa sameeyay hoos u dhac 2% isagoo heerka sarifka doolarka uu gacanta hore celcelis ahaan ahaa 8700 oo shilin. baanka Soomaaliland ayaa ku guuleystay inuu qiimaha shilinka Soomaaliland kor u qaado 4% bishii November ee sanadkii 2023. baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sanadkii 2023 ku guuleystay inuu xakameeyo hoos u dhaca qiimaha shilinka Soomaaliland isla markaasina qiimaha shilinka Soomaaliland uu ahaa mid xasiloon marka la barbar dhigo wadamada aynu jaarka nahay ee Ethiopia iyo Kenya oo lacagahooda marka loo eego doolarka Mareykanka ay sameeyeen qiimo dhac aad u weyn oo kala 6% ilaa 17% sida jaantuskan ka muuqata. tallaabooyinkii uu baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaaday sanadkii 2023 si uu u xakameeyo hoos u dhaca qiimaha shilinka Soomaaliland waxaa ka mid ahaa baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu suuqyada sarifka soo geliyay lacag doolar ah oo ku dhow 6 milyan oo doolar. baanka dhexe waxa uu muddooyin kala duwan kolba hakad geliyay qarashaadka dawladda ee ku baxaya shilinka Soomaaliland. baanka Soomaaliland waxa uu tallaabooyin sharciga waafaqsan ka qaaday sariflayaal ku xadgudba heerka sarifka ee suuqa. sidoo kale waxa uu baanku howlgeliyay guddida la dagaalanka heerka qaran kuwaasi oo soo saaray amaro kor loogu qaadayo isticmaalka shilinka Soomaaliland. 24 bishii tobnaad ee guddida heer qaran ee xasilinta shilinka qiimaha shilinka Soomaaliland qodobay soo saareen ku wajahan sidii loo xasilin lahaa suuqa. laga bilaabo maalinta baanka dhexe runtii tallaabooyin aad iyo aad u muhiim ah uu qaaday oo ah xasilinta suuqa. shilinkeenu waa lacagteeni waxaynu wax ku kala iibsano waxa weeye waxa qarankeena astaamihiisa ugu qiimaha badan leh marka markasta kor u qaadida qiimihiisu waa waajibaadka baanka dhexe. baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu xakameeyay heerka sarifka lacagaha qalaad heerka sicir bararka ee sanadlaha ayaa dhamaadka sanadkii 2023 ahaa 9.5% kaas oo ah mid aad uga hooseeya marka loo barbar dhigo wadamada aynu jaarka nahay. baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay si wadajir u bilaabeen hannaanka khasnadda midaysan ee dawladda taasi oo looga dan leeyahay nidaamka dakhliga iyo kharashaadka dawladdu ay maraan hal xisaabaan oo ka furan baanka Soomaaliland. maalgelinta iyo horumariska baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si kor loogu qaado maalgelinta iyo helidda deymaha ee hay'adaha iyo shaqaalaha dawladda waxa uu bixiyaa maalgelin iyo horumarisyo. sanadkii 2022 ilaa 2023 baanka Soomaaliland waxa uu maalgelin u sameeyay mashaariic ay fuliyeen hay'adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo dawladaha hoose ee gobollada iyo degmooyinka dalka.
mashaariicdaasi uu baanku maalgeliyey waxaa ku kacday lacag dhan $11,506,609.94 halka sanadkii 2023 uu maalgeliyey lacag dhan $7,650,000. Baanka Somalilan ayaa wadar ahaan maalgelin iyo horumaris ku bixiyey lacag dhan $23 milyan Maraykanka ah sanadadii 2023 ilaa 2022. Mashaariicda ugu muhiimsan ee Baanka Somalilan maalgeliyey sanadada 2022 iyo 2023 waxaa ka mid ahaa daamur qiimihiisu dhan yahay $1 milyan oo dowladda hoose ee Hargeysa loo soo iibiyey, waddooyinka iyo qalabka dhismaha waddooyinka ee degmada Laascaanood, gaadiid iyo 3 xeelbiyood oo wakaaladda biyaha Burco loo soo iibiyey, dhammaystirka dhaamka Gabiley, gaadhi dabdamis ah oo loo maalgeliyey ciidanka dabdamiska ee Somalilan, baasaboorka casriga ee Somalilan, dhaamka biyo-xidheenka Geed Deeble. Sanadkii 2022 Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa uu daymaysiiyey shaqaale dowladeed oo tiradoodu dhan tahay 1,120 shaqaale ah. Shaqaalahaasi oo guud ahaan la siiyey lacag dhan $3 milyan. Shaqaalahaasi waxay lacagta u adeegsadeen arrimo ay ka mid yihiin caafimaad, samaynta ganacsi, iibsashada gaadiid, nooca tagaasida, guryo iyo guur. Sidoo kale sanadkii 2023 Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa uu daymaysiiyey shaqaale dowladeed oo tiradoodu dhan tahay 621. Shaqaalahaasi oo la siiyey lacag dhan $1,700,000. Sanadkii 2022 ilaa 2023 mashaariicda dowladda hoose ugu fuliyey Baanka Somalilan ayaa ah sida jaantuskan idinka muuqata. Sidoo kale Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa uu sanadadaasi sida jaantuskan idinka muuqata uu maalgelin kala duwan u sameeyey dowladda dhexe. Ammaanka iyo isku xidhka qaybaha baanka. Tiknoolajiyadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa horumarinta nidaamyada maaliyadeed iyo guud ahaan kobaca dhaqaalaha dalka. Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan isagoo eegaya muhiimaddaasi waxa uu door weyn ka ciyaaraa horumarinta tiknoolajiyada maaliyadeed, isagoo sanadkii 2023 kor u qaaday adeegsiga tiknoolajiyada iyo ilaalinta ammaanka xanaanada amaba sistemada uu isticmaalo baanku. Sanadkii 2023 Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa uu isku xidhay dhammaanba qaybaha kala duwan ee baanka. Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan isagoo maanka ku haya ahmiyadda ay leedahay in baanku helo koor bank caalami ah oo ku xidhmi kara sistemyada paymentska caalamiga ah sida Swift koorka. Waxa uu bilaabay inuu raadiyo core bank system iyadoo farsamo fulinta nidaamkan la bilaabay dhowaanna la dhammaystiri doono. Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa uu sii fudeediyo hababka lacag bixinta qaranka. Waxa uu sanadkii 2019 hirgeliyey nidaamkan shilin. Nidaamkaas waxa uu shaqaalaha dowladda u fudeediyey in mushaharooyinkooda ku soo dhaca xisaabta Baanka Somalilan ay kuwa kala baxaan iyagoo adeegsanaya telefoonadooda gacanta. Nidaamkani waxa uu fudeediyey bixinta mushaharooyinka. Waxa kaloo uu meesha ka saaray shaqaalihii xaglayaasha ahaa. Sanadkii 2022 waxa uu Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan u adeegay shilin u furay shaqaalaha dowladda ee gobollada Gabiley, Daadmareed, Selal, Togdheer, Saaxil iyo Saraar, iyadoo nidaamkaasi loo furay shaqaale tiradoodu dhan tahay 5,570, halka guud ahaan Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan uu xisaab ugu furay shaqaale tiradoodu dhan tahay 8,585 shaqaale ah. Sanadkii 2023 waxaa bishii celcelisaan dhex maray adeegga iyo shilin $750 bilyan oo shilinka Somalilan ah, halka uu e-casherna uu dhex maray $850 bilyan oo shilinka Somalilan ah. Sidoo kale Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan si uu u fudeediyo habka bixinta cashuuraha waxa uu isagoo kaashanaya Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somalilan uu sameeyey hannaanka e-casher. Hannaankani ayaa ah nidaam u sahlaya cashuur bixiyaha inuu cashuurta ku waajibta ku shubo xisaabta Wasaaradda Maaliyadda ku leedahay Baanka Somalilan isagoo adeegsanaya telefoonkiisa gacanta. Dhismayaashu waxay muhiim u yihiin horusocodka shaqada iyo qiimaha hantida maguurtada ah ee hay'addu leedahay. Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan waxa uu sanadadii 2022 uu kor u qaaday dhismayaasha kaabayaasha shaqada oo ay qayb ka yihiin dhismayaasha muhiimka ah ee la hirgeliyey sanadada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka dhismaha laanta Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somalilan ku leeyahay magaalada Caynaba, dhismaha laanta cusub ee Laascaanood, dhismaha laanta Saylac, dhismaha laanta Belegubadle, fulinta laanta cusub ee Baanka Somalilan ku leeyahay Masallaha Hargeysa, furidda qaybta baanka ee dekadda Berbera, dib u habaynta laantii hore ee baanka ee Saylac oo loo bedelay guriga martida, dhismo dabaq ah oo la saaray laanta baanka koowaad ee magaalada Hargeysa, dhammaystir lagu sameeyey laanta xarunta magaalada Hargeysa, dhismaha xafiiska shareecada oo laga dhisay Hargeysa, dayactir iyo dib u habayn lagu sameeyey khasnadda baanka ee magaalada Hargeysa iyo laamaha gobollada, dib u habayn iyo qaybo ka mid ah guryaha baanka ee magaalada Hargeysa ee India Line-ka, dhismaha guriga maamulaha baanka ee laanta Berbera, dib u habaynta dhismaha macadka baananka iyo maaliyadda, horumarinta shuruucda
shuruucda maaliyadeed baanka dhexe ee somalilan si uu u ilaaliyo badqabka nidaamka maaliyadeed ee somalilan islamarkaasina uu taageero kobaca dhaqaalaha waxa uu curiyaa islamarkaasina uu dhaqangeliyaa shuruucda la xidhiidha maaliyadda iyo maydhaanka lacagaha sannadadii baanka somalilan waxa uu curiyey xeer hoosaadyo hagayaal iyo siyaasado lagu horumarinayo nidaamka maaliyadeed sida jaantuskan idinka muuqata waxa uu muujinayaa shuruucda uu curiyey baanka dhexe ee jamhuuriyadda somalilan sannadadii machadka baananka iyo maaliyadda ee somalilan baanka dhexe ee somalilan si kor loogu qaado aqoonta maaliyadda ee guud ahaanba waaxda maaliyadda waxa uu diyaariyey dhismaha uu yeelan doono machadka baananka iyo maaliyadda ee somalilan machadku waxa uu shaqada bilaabi doonaa sannadka bangiga dhexe ee jamhuuriyadda somalilan waxa uu sannadkii rukhsadda uu siiyey 2 bangi oo cusub 2 shirkadood oo bixiya maalgelinta yaryar ee loo yaqaano microfinanska 3 xawaaladood oo cusub taasoo wadarta xawaaladaha rukhsadda ka haysta baanka dhexe ee somalilan sannadkii ka dhigtay 18 xawaaladood